falanqadu waxay tahay habartan hoose waxbayaan loo qiirmeerin habartan hoose ee konton jirka ah annagu qabiil ma qorno qabiil la dadka uguma hiilino mana nirahana ka tana in adeerta oo daarooda u hiili waxba nagama gelin kaala xadunimo kala xigaan walaal habartan hoose markan ku ruqaansado wax ay haysato oo xoolo ah iyo waxay leedahay midna ma jirto iska daaya qabyaalada yeena qabyaalada ugu kala hilin labadan kaala xadood kaala xadan hoose waa ti adduunka ugu kaala xadsanayd walaal waa naagta jalaata yar nin turki ah walaal nin turki ah heede xabad jalaata uu ku wareejiya barida buluq iyada hooyaa ka siinaysa walaal aan ku sheegay Soomaaliya qabxa turkidu noo qoriyeen iyo carabtu iyada way naagta soo kaxaysatay inanka yar isagoo la jooga naagtiis isku xanaaqeen wadatay gabadhi sharafta lahayd milyuun caruurta u dhalaysay haysatay markay isku xanaaqeen faris wanaagta soo kaxaysa waa habartan hoose way walaalle habartan ha u qiirmeerina habartan ilbax weeye hawlaha way iska hagaajisay midda kale wax cadeynaba iskama reebin iyadoo jidka lagu dhuuqayo iyadoo ninka afka u gelinaysa iyadoo xambaarsan yahay iyadoo timaha ka kala riday way iska ilaalisay wax kamarad aba horta way iska ilaalisay waa qof ilbaxa oo qurbayn badan joogtay yes sharci way haysato American citizen waana nasiib laakiin xoolo ma haysato nafteeda ma ixtiraamtay marba qof baa lagu ruqaansanayaa maya ma aysan ixtiraamin nafteeda haba yaraatee ma ixtiraamin hooyo weeye caruur haysata ma guursan kartaa nin ka yar oo ay dhali karto haa way guursan kartaa laakiin say akhlaaq xumada ha joojiso maalinba wiil yarba kor ka saarantahay wiilka yarka ah jabra bay korka ka saarnayd wiil yaroo soo dhoofay oo reeraha hawiyaha ah ayay korka hadda ka saaran tahay oo wadataa caanka iyo ay dhoona wax la dhaho halkaa markay marayso habartani waa mid cidideed calool ku jabtay araxaday ka jabtay wayna ceebaysay wayna fadeexadaysay beesha ogaadeen bris naga qabsada naagtan uma idin lahayn horay naag kaala xad ah oo suuqa taagan uma idin lahayn horay oo la idinku halqabto ma guursadaa leeyahay waan ka dhilaystaa anigu isma quuro ayuu wiilka yar ee kurayga ah yiri wiilka kurayga eed miyuu leeyahay maya malaha eed male yes waqtigiisa buu haystaa waa inaan yar aan sharci haysan habra ka weyn ba marba mid xareysanaysa xaleebantii weyneedii haddaan wasa waaridiintii buu yiri Cabdimalow marba habartii xareysatay lacag wadataba wuu ka tirinaya laakiin labadan habrood tan hoose ilbaxbay ahayd wax cadayna iskama ayna reebin way qarsatay hoogeedii iyo beedii hoostay ka wadatay ma garatay laakiin naagta isqaawisay dharka dhigatay wax walba soo qaadatay amiish turki bayna bartay gabadh ilbax weeye lacag bay haysataa waxba kama jiraan walaal waxaan leenahay ogaadeenow axadkan wajiga weyn le kala marmaroora qabsada oo edab u yeero akhlaaq u yeero waaniyo wuxuu sheega hadda kadib yaan meeg la idinku qaadan habartaan yaan meeg la idinku qaadan maxay marba wiil yar shirka u saaray maxay marba wiil yar gaariga ugu wadata waa hooyo caruur le ma xishoonayso laakiin iskama ayna reebin wax cadaynaho suuqa ku fasahaadiso laakiin naagta wax walba banaanka keentay isqaawisay dadkeedii ceebeysay hadda calaacalaysa daahir calasow baa la igu aaraya daahir calasow laguguma aarayn nin raga meheradiisa shidanaya magaaladiisa jooga daahir calasow annagaa kuu sheegayne habeenkii koobaad ee adoo cirka ku jiro cabsan adinanka yar ee cabtayga hoosta soo gashatay eed maqanayd waad maqanayd maskaxiyan baad miswala u maqanayd annaga runta ku sheegayne because qof maskaxis joogto waxa ma sameyn karo nalaq sida nayl yaro ilma dhashay ad cunuga yarka cabtayga iska kala ridaysa suuqyada oo fiidiyada ka duubeed barida marba uu saa ku xafuujinay maalintaas uu daar cali soo sheego yiri annaga dhilla nama matashabu yiri naag dhilla ah hadda hadii la soo qarxiyo shaqo kumanin maalintaas ku sheegay hadda calaacalaysa nala daahir cali soo baa la igu aaray laguguma aarayn daahir cali soo sharma way heshiiyeen yes annaga ku sheegayna ma fahanti ama uur lahow ama halahaan kaala xad baatay dadkeedii ceebaysay annagu reerka aad sheeganayso jifada aad sheeganayso kumaanan arag naag kaala xad suuqa taagan inay ku bireeyaan bay ahayd ama ay ku dayriyaan hadda qof weyn adoo ah oo caruur leh oo lagu guursaday
وصدح قبلوت صور دلي أياد إنا يرى عبتي كدب النيع لهذا وان سو غوري نولا شيدي بو كعياري ها كانوا يقول سميني كانوا يقول سمين ميو كربين نكم ما يكون ربين ولا كما ربين كما نقبين نين أنكو قبين بد ودلة تاجنتاي ولا ليال وغير والبناك هذا قبصو كان حد والبيناك هذا قبصو هذا كدب ميك باندين قبانينا ناقة هدي لوين كأ إن منك أن قبين سوق كفولية ين منك كسنة السنة أمد النبي محمد عيبينيه labada reer baan meeg u qabanayna qolkan habeen hore habeen dambe ama caawa gelinka dambe aan ugu qabanayna meeg dhilo walba waa laga tirnaya wiilkii yara waa cararay kanadu iska dhiibay dhilo mar rabuu yiri naagtii jeclaanaysan iyadaaba doqona buu yiri tanihiisi buu raacday marka waxaan ku soo gabagabaynaya dadka qolka haysto labadan kaala xad yaan loo kala hiilin amiish anagu qabiil kuma difaacayno kaala xad u dhashay weeye اوكي هرت العيا leedahay iyo way dalxiista ilmaha yar yarka taxi retire ka loo soo celiyo baa lagu dalxiisa meeshan horta kowdaha saqiiro gabar yar oo caata oo maskiine oo waxaan ku dhiman rabtay qabtaa oo 12 jire gabadha irsaaqad ma siiso 9 way ka wareegataa isla wareegto mar jabr u tag mar maxay kala tag mar turki tagay ka soo dhaxniiki lacag bay haysataa guri dawlad bay deganta naag section 8 degan oo dawladda sifaad gareynaysa lacagta hays xagee taala kira xataa iskama dhiibtay guryaha deganta waa guryaha section 8 ka ee duubto ee dayaal labada naag waa laba dhilooyin waxay isdhaamaan ma jirto dhilooyinka waxa la doorada waxa way wada cunaa laakiin aftirtirisha is dheer yihiin wax yar aftirtirishada waxay uga roontaa naagta la yiraahdo bahbahdaanay tadaqanta ee futada gacanta ku sidata ee siilkeedii afkeeda kala reebo weydi yacndadeedii iyo naaseedii ninka dul saartay baa dhaantaa wax yar laakiin wax ay isqaamaan oo ilaahay abuurtay ma jirto xaga dhaqan xumada san bay dhinjin waa laba dhilo annaga kala ma jeclin sida caadiga lacagna ma qabtee malaha dhilanimada waxay ku keentay ee ku dalxiistaa sida caadiga iyo ilmaha wax jaal sportka lagu siiyo marka sharma baay anu ilama qaldano sharma baay waa nin geesi ah waa rag dhalay dhilo walba siilkeeda gacanta ku wada ha ka gashta ha ka kaadi hana ka tago hadhowna soo caayo ha dhilla raadsataa sharmuuta raadsataa naagtan amiish hadda way is amaanis wixii tiri aniga cabtooyaal waaye aniga nolosheedu way quruxsan tahay aniga naag fiican baa ahay cabtooy xareesataa maxaa ninka cabtooyga iyo naagta cabtooyga kuu soo xareeyay maxaa labada sharmuude ee qamriyada cabo ee dhilooyinka ku keenay hadaan u sheegaysid dad fiican baa keensan lahayd gabar asturan baa keensan lahayd de saaxiibtaa waxaa la kuma cadeys kuma madoweyseed ee ka dhigta adna kaamirada u haysatay markay is duubayeen ee is jaqayeen naagta duubaysaa tahay markaagana waa lagu duuba laakiin adu aqli leeyahay taleefankaagi kan iiga duubaa tiri ma fahamtay tan laakiin waa rarbaadiyo Soomaaliya ka imaato way cusbantaa ma ogtahay waxay u moodaa waxaas la soo boosti gareenaayo waxay u moodaa in yani wax fiican yahay ilaa qofka markuu Soomaali ka imaado ama gobol iyo yani qurbihi lama qabsan ma ogtahay qurbahan naaga badan oo iska wada yaaca way jiraan oo alla ka cabsan laakiin isma duubaan noloshooda iska raacdaan fahamtay dambi waaba gashay maxaa public isku keentay maxaa isku soo duubtay Miss Wallay dambi waaba gashay maxaa waxyaabaha la qaato iskaga celin weysay hadda adduunka iyo qaracanka yaala waxay tahay mareykanka waxa la ansixiyayba cunuga garaca awal waa la soo tuuri jiray hadda lama soo tuurayo sida caadiga ilmaha garaca mareykan sharci waa qofkii ilmo waa soo tuura dhaho dhakhtarku tagay booliska waxa street jaalo aaday qofkaas waa la xiraya because ilmo in la soo tuuro waa la mamnuucay wadankan ma wala soo tuurayo dadkan ugu yar dagaal baa gal rabna Iran baa la dagaalami rabna wicilada xataa ma la tuuri kareen wicilada xataa waa heesanayna bay dhaheen Soomaaliha noqdo ولا قال هنقضي وحنا نجمع جلين عنق وعلى ولا طورة ما بجرته لأجل قال فرحة هذا ما كره حسنا ها نا إن عنق أسبناك كلا كانوا مركا راح يسنسي إن كفكرتي هذا كفكر ويسني عنق أبناك لما كاني دانا واتكورين على شو كوجر السجال بلاد كبعدي أساس كإماد دانا كبعد وقال الدولة وجي هذا الربين واحد هذا الدولة ما هاي كرو هذيك لما هو وإنا هيستا وعلكاغا اسكا هيسو لكن تعود هاي ما يسوقرا سوق أمريكان 60 سنة الطوري كرتا ما جرتو هوية دارات وما باهنو عنق وأمريكان على أمريكا كوهاس قشتي دولة باهي سنيسو إيدا كوي عدان كالا ديدا إلا طورو وابا معادا لعنق سومالي ومدويات طوري عيدا بالاقات إيقايا مركو كوري الطوريسو oo ilaahay abuurtay ma jirto ilmahaas miswaalay mareykanka doonan traa wuxuu yiri
markaa raaxaysanayseen maxaa uga fikiri weyseen ilmahan xaquuq buu leeyahay naf buu leeyahay annaga muslim daanaana kama cabsana xataa diiniyan ilmaha in la dilo waa dembi kama fikiraan dumarka waxay ka fikirayaan yaa lagugu caaynin dartiis dee dowladda maraykanka waxbay fahantay xataa lama ridaya dhahda aday kuu taalaa cunug lasoo tuuri kara ma jirta dowladda baarlamanka wuu ansixiyey booliiska ugu horeeyo waxaa ku wacaa dhakhtarada la kulantay aadhaad iga soo rid ilmahan booliis bay istreet u waceysaa waa lagu jeebeynaa jeelka aaday nafaaba goysay haa marka mrs wale walaalo candhadaada haddaa ilaasho weysay sharma boyna ma qaldano maxaan ku dhahaaye adiga qaldan anugu adiga qalad ku saarayna naagtan aamiish la dhahane waa habar xumo ciyaal suuqade oo kala xad ah ninka ay naagta xaaraan kurtigiina ku sheegaya gabadhan daaween laqday amiish markii fitada iimaan walba ku soo galiyay tanne macnaha ina adeer waas kala dhigtay hada dadka baadiyo ma soo kubani ku dulacay isoo qora kubtii ku soo qora labadoo nin ku soo saaray وانا باديده انا adeer ma fahmaysi miya tan waxba lama socoto dee tan markay raaxaysanaysay way ka fikirta daawo ee laqday laga yaabay asaga inay dhaxday war niyo waxaan isticmaal xataa ma fahantay hadhow baxar ka baqeena asagana okay dhahay ku raacay dee naagtan iskama taxadirine sharmuhu ku jeclaanayaaye bal uur u qaad bay istiri doqonimadeeda مليون ilmuhu ka dhalay buu ka tagay ma aduu ka yeelaya inuu ilmahaaga qaato adeer kaama qaadanay daahir lagaga aaray daahir lagagama aarin siilkaaga adaa cushaweysay oo iska masiibta la falanqeynaya oo siilkeeda ka adkaaweys adduunka ilaahay siilkaaga da ka adkaaweysid maxaa ka adkaanay hadaaba ilaalin weys labadaada lugood dhaxdoodii oo nin xuno jaqoraayo cabto ee ka qaatay maxaa adduunka ka nooshaa waa ila isdishaa sida caadiga buundada iska tuur nafta waa wallahi iska dhimo maanta waxa shala dhiibta ka daba oo ka waran Soomaalida waxa ku amahdaa waxaaga ha dhiibin hadaa dhiibtidna ha iga daba calacalin hadhow hada liiskan hadaa dhiibtay oo free ka dhigtay oo ninka ku casuuntay welcome baby dhahday maanta ina oysid ma ahan dhaxda xiro ani still waxa ku leeyahay be strong dhaxda xiro ilmaha yarka iska karso ilmahan hadii reexirsi noqdaana waa kaas hadii Amerikaan noqdaana waa kaas annagu sharma boy ida wax xisaabsan yahay jirto naagta arka waa ka taagaa oo dhahay waana sii soconaani naagta sharafta leh aan qaban milyan bay ahayd jah haduu milyan saa ugu faanay ninku cabtooy ma ahan laakiin wuu yaqaana liiska qiimaha la iyo liiska bilaa qiimaha oo kala yaqaana miisaan baa u saaran liisaska ma fahanti ها ليسسكا يدك dadka wada gaaray comment liisaska kala qiimo badan waxa la dhahay kala ma fiicnaa laakiin qof walba suu sharaf ugu yeelo waay wariyaa gaajo ma qoysaha ma baahan tahay ina adeer dib ma lahan iguurso oo ay isxalaalsan oo reerkayga iga doono waa wax la gartay laakiin baby waa ku jecla ma jeceshaha ma ka soo tagta naagtaha kaale habba dush iska saar dalaq ee meesha seet uur wax maxaa jiraane sister maxaa isku bahdilay quruxda saabaleedahay ilaahay ma ku bahdilina waaya isku bahdishay sharma boy maxaa isku bahdishay nin six bag leh oo qurux badan oo noqoleed dhuuntaan ku mari la haduu yaa xataa isbahdil xataa naagtan quruxdan baa dabaqisa la dhilay laakiin sharma boy oo nusmitira oo cijila eg oo asaga waa aamod inuu ka kuma joogo America inuu joogo xataa lama moodo ninka baby isku qaawisay baa intuu gool ka dhaliyo dhana ordiga tag bala ku degtay anu kuma aqaanay amiishna waxaas ka dhigin mu'minad walaal sharmuudada ugu weynaaba tahaba oo gabdhahan baxarkan gabadha saaxiibada adaa gelisay in adeer caadi waa la baashaalaano caadi iska dhigno aad tir gabadha Soomaaliya ka imaatay mogti waxa ma ogeen in adeer waa la baashaala kaniini Bristol intaasi saa waxa leedahay uurku ilaalinaya saa waa ka goolka wuu dhashtay hada xaasinimo inaad ku socaysid baan sameeyay sidaas horta sharma boy niyo inuu gabadhan darooga siiyo waa cadahay gabadhan balaayo ka dharjiyay waa gabar la daroogay ha si toosan uga hadlay aniga arinta meel maarag dadkan faahsaneen baa u sheegay niyo gabadhan darooga uu sii jiray waxan waa wax hore uga dhaxay jiray sharma boy iyo gabadhan Miss World waa dad ma aragtay hore u soo baashaalay waa la baashaalay waxa ku cad meeshan in la baashaalo waxa ku cadeynaysa gabadhan fiiri markii ay timid gobolkii laga soo wareejiyay markii sharciga soo qaadato waay marka sharma boy oo horta ma aragtay gabadhan ka qandacsaday stoosan uga hadlay aniga ha baashan runta laga sheego ninkan gabadhan uu asaga u yeelay uurka asaga u yeelay war sharma boy uurkan asaga u yeelay waati sheekha intay sheekh soo wadeen oo la quraan saaray quraankii baa ka hadashiyay horta ninkan alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh
quraankii baa ka hadashiyey su'aalaha la weydiiyey war sharmo wax jeceela ma leedahay afcaadu ku yiri aniga wax jeceela mali gabadha uurka u yeeshay sharma boyow intee maaragtay ka soo baxda beentan iyo barraqdan dadkan iyo waxba been ku sheegin war gabadhan sharma boy uurka u leedahay waa la ogyahay ha gabadhan kaniiniyo usii ayadoo dhaysa caaw islaamka soo dhigtoriya fiiri maxaa dhacay marka gabadhan la dhibaateynayo ma laga hadlo muhiimadda ma laga hadlo gabadhan uurka waa loo yeelay ninka u yeelo waa sharma boy waa inuu imaadaa uu ka hadlaa kiiskan imaw maxkamadda iska cadday haddaad maaragtay aad gabadha uurka u yeeshana walaal macaan dee iscadday bannaanka ismari gabadhaas waxay u timaada horta waa isaga ugu yimid horta ninkan waa loo yeertay dadku waa kala fikir duwan yihiin gabdho waxaa jira macnaha isku dhigo waxaan isku dhig uur yeelo saa u hanatid qofkaas ama aa wax ugu dirsatid horta gabadha dembi ma laha ragna macnaha horuu wax u wasi jiray oo uur u yeeli jiray labadan habrood wiilkan eed ma laha sharma boy fanaankeenna eed ma laha labadan habrood qaxaabooyinka boholaha ah ee karaamada iska qaaday ee wiil yaroo miskiina ee aan sharci haysan ee marwadiisii sharafta lahayd ee owlaada u dhashay la joogay habartan amiisha horta ka wadatay 50 jirka ahee dabada isku soo samaysatay ee jirkeeda qashay gabadheedu waa la faqayaxan aliir gabar yar dhowr iyo 10 jir ay haysataa sakaraad wey waa la faqayaxan meel ilaa uga dhaqaaqda hadba cid bay u geysaa ma fahant inkaar qabta ah ee inta tagtay turki magaci Soomaaliyeed nabahdishay ee xabad jalaata ah ninkuna niikinayso waay wajarakin suhaybo habartan kala ku soo hartay habartan gagabka ah ee inta darbiga shalay ka soo booday isceelin weyday xishoon weyday daahir la eego aara abahay daahir boos daahir ninka fuustooyinka riixda ee meeshaas joogo ee laan dheereey waay habar qaxaaba ah oo koombadeedu wadata maxaa ka galay wax ka galay male cid ku sheeganaysana male qaxaaba baa tahay adaa isbahdilay adigoo habara darbiga ka soo booday intaad nolol raadsan lahayd wiil yaroo alkool oo miskiina oo asagaba sharci aan haysan aad qamrada la cabaysi tan baana ku gelisay 50 jirkan Soomaali magaciisa disha marna Kenya u dhoofaysa gabadheedan hadba cid baa loo geeyaa oo lafa ah marka labadan naagood waa laba naagood oo buhula ah oo habra ah oo waayeela ah oo sharaf lahayn sharaftu waa dhimatay istaahil bay la mid yihiin waa qaxaabooyin cid guursata malaha horta amiish waxay Mrs. Wall ku sheegtay iyaduna way la tahay horta taasaan beenahayn waayo naag walba saaxiibadeed waa la mid waxbayay anaga ma taqaana Mrs. Wall ba ilma laga soo xaaqay Mrs. Wall ba sharma boy waxeeyay iyo waxa horta anaga noola imaanin ma fahamtay waa shuuba kale shuubanimeena ku saaxiibeen gabadhan Mrs. Wall walaba aan ayeeyo loo ahaayay daaroodka jeclayd misana waxaan oran karaa de hal walba meesha dhigtay ayaa lagu qalaa in adeerada meesha isdhigay adaa gabar ayeeyadaaya ninkeedii oo aad og tahay أي ما شاء الله فلقة أي بس ما شاء فلقة أدق وابتلا أي أكل سمعته فلقة سيدنا هذا gabadhan nin naag leh oo ayeeyadeed qaba ayay mataqaanaa shukaasata isagoo waliba milyuun la nool ma fahantay marka ayay waxay leedahay de maanta soo ooyeysaa Mrs. Wall waxaan leeyahay gabar walaashaaya oo marna ayeeyaday waxaad ku samaysay baa horta kugu dhacay ma fahantay gabadhaad garanayso iska daa mid waalidba kuu ahe ninkeeda waa laga leexdaa waa ceeb waa laga xishoodaa kan soo fura xataa laga xishoodaa iska daa mid ayada qaba markaa la nool oo awlaad u dhashay ma fahantay marka halkaada isdhiga walaal abaa ciilka isbaday naagtan amiishna yay kolban waxaan weeye anaga noo soo tuubaraacin waa macaad waxa lagu saaxiibahaa akhlaaq xumada waa tay Mrs. walba sheegayso la hebel bay la seexatay naftirkeedu marka waxa weeye naagahan waa la isla qaraaban jiray biirta la isla cabi jiray waa la isku shushuban jiray waa la kala shushuban jiray markii damana halkan la isoo soocay oo la soo fariista waxa weeye xataa ceesho malixnimadii dhexdooda may xeerin waa laba shubo weeye dhagax isku rogoyn dhagax in lagu rogay istaahilaan ma fahantay habartan weyne amiisha wajiga ka dhamaatana de waxaan leeyahay walaal ma dhaanti Mrs. Wall ilmaha aad leedahay adaad adigu daawo cuntay oo Mrs. Wall ka reer magaalsan tahay oo ma taqaana gabadha yartaa oo de Afrika ka timiyay waxa weeyaan
adigu aad qurbaha kaga soo horreysay in la isgeedageedayo aad taqaanid geedageedihiina aad ka qarisay waa inaag xaasidadaa tahay naya markay uur yeelatana waad soo cayday maxaa adigu uur yeelaadba waa tumanaysay dee waad isgeedageedaysay ma fahantay marka waxaad saaxiib shala ku ahaydeen ayaad maanta miidiyaha noo keenteen anigu maalintay iscaayayeen wallaahi waan yaabay waa 2 shuubo biirtaa la isla cabi jiray buufinta la isla buufin jiray suuqa la isla quraaban jiray sharma boy baa ka wada dhaansaday ninkii kale la sheegay muxuu ahaa ay lahayd amiish bulo seexday baa ka wada dhaansaday nagaana shuubooyin bay ahaayeen waad arki jirteen habeen iyo maalin bay isdaba socon jireen ayagoo meelaha qaqaawan ma garataa maanta intay afka dhuxul noo soo marsadaan oo kareen noo soo marsadaan bay waxay naga dhaadhicinayaan heblaha shuubo ahayd iyo anigu ma ahayne iyadaa shuubo ahayd naa idinka yeeli mayno dee haa idinka yeeli mayno 2 shuubaad tihiin idinka akhlaaq xumada saaxiib ku ahaa nimankan iyo tumashada heshiis baad ku ahaydeen maanta miya caabidana noqoto isku caayaysaan maxaad shalay uga fiirsan weydeen dhaqan xumada iyo waxaad samaynaysaan gabdhaha yaryar baa tihiin oo quruxda ale Amerika jooga opportunity laan yimaadee maad wax barataan maxaad hoosta uga waalateen dee waan la yaabanahay anuu naagahan labaduu kala daran yihiin haye naga fariista oo akhlaaq xumada nala dhaafay ninka ragga candhooyinka u dhigtay ardayda adkaysiga afeef hore yeelaa la yiraahdo adkaysi dambe dee adkaysigeeda yeesha walaal haa nin gurbaan garaacda la yiri ilaaq dalbay idinka hawshan u yeertay walaal midii uur leh midii ilmayska soo xaaqda midii aanba daaweyn cuntay naata jabkiina qarsada idinka miidiyaha isu soo dhagay idinka isu tuubaraacay idinka waa isxaaya 2 shuubaatiin yaad u kala fiican tihiin naano ma kala fiicna anaga waxaad heshiis ku haydeen way shala waxaan oo dhan biirta heshiis baad ku haydeen buufinta heshiis nimanka lala tumanaya heshiis waxalba heshiis ba ku haydeen naaya saaxiibada waxa la yirnaaya markii adiga lagu doonayo in lagu arko saaxiibada baa la eegayaa Mrs. Wall way saaxiibada waad isu egtihiin هاي ما يسوق رسالة يسوقته هاي ما يسوق waa istihiin walaal waa istihiin kala gurnina ma xishootaan weelkaad wax ku cuntaan baad ku xaadhaan haa xataa bariiskaad naayaa isla cunteen qurunkaad isla walaaqateen waad isku xishmeyn weydeen naayaa naa waxbaa la xeeriyaa naa markii la isku dhaco naayaa waa la kala aamusaa gabadhaad cayshka la cunto oo saaxiibka la tahay naayaa waa laga landheerayaa naayaa weelkaad wax ku cuntaan baad ku xaadhaan 2 kudaafad baad tihiin saambay samaysay tan kalaas saambay samaysay yaa waxa uga shaqeynta macarrad u shaqeynaysaan naa 2 shuubaad tihiin 2 shuubaad tira naga fariisana cala shaydaankiina ku yaale hadda la yiraahdo Mrs. Wallna isku magaala ma joognaa nin iga xogogal roon waa yar yahay inta meesha ku jirto odo sharma waa nin ilaahay karaameeyay ninka yar fariidka ah ee caanka dhalay ah wax uu shaqo ku lahayn in dusha laga saaro anigu aragti ahaan waxa uu arkaa qalad baan u arkaa gabadha waxaan maartay saaxiibtinimo caadi oo kala dhaxeeyay aan ka ahayn haba yaraatee ma jirto gabar uu meersaday ma ahayn xaaskiisa maysan ahayn haddii maanta uu gabadha ku soo baxana mid isaga uu mas'uuliyaddeeda leeyahay maaha ilaa isaga uu noo sheego uu yiraahdo aniga gabadha ureeyay saaxiibtinimo ayayna iiga fakatay ilaa afkiisa aan ereyga ka helno waxa weeye ninkaas yaani waa ka nadiif gabadhan waa dee gabadh iska socod badan weeye xaaladdeeda ilaah baa og waxa weeye reer Seattle way yaqaanaan de meesha ka keentay ayada in la weydiiyo ayaa habboon wayahan waa arkayay ayadoo aad iyo aad sharma u caynayso maaragtay beesha daarood caynayso aflagaado fara badan ka baxayso xataa waa laga duubay ayadoo duuban baa hadda la soo dhigi karaa waxaasoo dhanna dee waxay u samaynaysay si kasta oo wiilka ay dhulka ku keeni karto inay ku keento damac baa marka galay way rabtay inay guursato dee isaga maba danaynayninba naag waxay iska ahayd fudfudud oo aad maaragtay dhaqan ahaan aan u ficlayn meelo badan hore u soo martay dee maba uusan doonayninba inuu shaaciyo uu yidhaahdo gabadhan waa guursanayaa ama uurka anaa leh dee nin doonayay maa hadday kaga fakatayna dee ninkii ugu horreeyey oo ay wax oga fakadaan ma ahayn marka dee ayadaa isku qabto iyo reerkeeda waxa weeye mas-uuliyaddaas ayadaa iskale dee candhadeeda hadday ka adkaan weysay candhadeeda dee nin walbana way siisaa hadday ka adkaan weysay sharma dee uma dhoorayo uma ilaalinayo marka ilma adeeryaalow ninkaas arrinkaas wax shaqaa kuma lahan
gabadhan ciddii ay maaragtay uurka u yeelatay ayadaa laga rabaa dee caamishna wax ay maaragtay ugu xoqonaysa maba jirtaba haba yaratee weeyaan runta in laga sheego labadan qof saddexdan qof in runta laga sheego weeyaan oo wixii qof walba uu arko aqoontiisa uu ka garanayo saddexdan qof codka maasa ka dhigi codka kor u qaad walaale wareede niyo may maqashin maasa wada hadda fiican tahay saddexdan qof waxa weeyaan labadan gabdhood waa saa la sheegay horta maxaan ku maqlay gabadhan Mrs. Ward waxay isku barteen Kenya xitaa gabadhan kale uu guursaday ka hor way yaqaaneen haddaba Mrs. Ward aniga labadan gabdhood waxa u bixinayaa Mrs. Raqiis iyo Mrs. Jalato labadan magac baan kala siinayaa horta Mrs. Jalato waxa weeye horta labadan naagood iyaga waxa weeyaan naag walba waxay doonaysaa inay ku joogto hubqaadkeeda burciyaa suuq baatay raacay balaqeeda inay ku joogtay doonaysaa TikTok kowdhe docka naga turaa waxa weeyaan iyay ku joogayaan labadan gabdhood horta akhlaaq xumay ku soo kordhiyeen Soomaalida maanta in iyagu is soo qarxiyaan in iyagu bahalkooda ka sheekeeyaan in iyagu iskeenaan waxa weeye wax la eegayay waxa weeye waxay ku jiraan baa la arkay waxay ku jiraan ee la arkay hubo iyo ay kala miisayeen hubo iyo qashin iyo zino ay kala miisayeen marka inay maanta is soo qarxiyaan ilaahay ceebahoodii keeno wax kale oo magac u haray ma jiro naa kastoo sinaysata naa kastoo saas maartay wixeeda u dayacda waa laga ballaadhanaya wiilka yar ee ma garanaysaa ayaan waxba dhowranayn ee gabdhaha furfurinaya ee isagoon sharci lahayn ku dheelaya ee ka caqli badiyay naagaha aad arkaysid hubkay leeyihiin naag waxba ha ka sugin naag waxba kuma dhex jiraan iminka gabdhaha waad aragtaa baruurta saaran iyo hilibka saaran dee caqlina ma jiro ilaahba dadka caqliga kala geliya naag walba futada saaran laba qof bay leeg tahay ma garat iyo barida ku xidhan haddana caqli ma jiro ilmaha yar alkoholistaha baa ka caqli badiyey siduu gabdhihu furfurinaya arkaysiina 45 jirada marka horta dee wixii kale afuufayana ku hadalkooda wadaa Soomaali beenayna afuufin baa laga yaabaa naagaha waxa afuufa madow waxa afuufa bariyaan meeshaas uu ka dul talaabsaday isagana inagu waxaan u jeednaa intan daaha sukadiisa aan u jeednaa laakiin naagaha waxa afuufa Arab baa afuufaysa oo Mexican baa afuufaya oo Jamaican baa afuufaya waxa lagu xundur lafooda loo geenayaa gus gabdhahan waa gabdho hohoyaha weeyaan waa noocu sheegayay dalcaseeray meel walba way dhiibtaa meel walba afka laga siinaya oo dabada laga siinaya oo duburta laga siinaya oo siilka laga siinaya naagahan ugu naaga tagay weeyaan marka saasay tahay hadaba uurkii waxay meel kasta la soo mareen siilkoodii weynaaday ee meel kasta la soo mareen bay dhaayeen Sharma Boy baa leh alaabtan hooba lagu dhahay waa lagu soo xirigelinayaa shabakadan badweyntan cidna ku soo dhici weeday waa la doonaya ku soo dhaco Sharma Boy isaga laftiisu waa xarfaan imka argay isagoo sheekh intuu soo qabsay daaqadiisii leh aniga naagahan way ku khaldan yihiin inay jeclaadaan oo qalbigii ka jabinayeen naagahan daba ordayay iyo kuwa le uur ban u leeyahay kuwa kale wiilkan waa alkoholista waxba dhowran maayo waa wiilka marna Kennedy noo soo gaabi marka waxa weeyaan Mrs. Jalato iyo gabadhan kale waxa weeyaan wax ay la joogaan ma jirto waxa weeyaan gabdhahan ayaan qabiil loo eegin mid walba waxbay ku khaldan tahay mid walba ceebay leedahay gabadha markay lacaayaysaana gabadh walba adigu is eeg intaad ceebooda leedahay adigu is eeg gabdhahan waxa weeye gabadhan maxaa la labadan gabdhood qalbi wanaagooda iyo jijiloocooda horta kaday waxa weeyaan taasuu ka faa'iidaystay ninka yar ee magaranaysaa Sharma Boy caanimadiisu ay uga faa'iidaystay waana magaranaysaa ku bahdilay waxa weeye waa ka intuu shahawadiisu ku falay ku bahdilay tan kalena sidoo kale maalin walba way ooyeysaa shalato wakiil ha ilka casar markay soo caayeen iyadoo la saaxiiba wakiil ha gabadha in adeer tahay wax ku sameeyay ay tiraan waxba uma geysan muxuu yacaayaya waa amish marka naagasto halka isdhigta lagu bireeyaa marka waxa weeye qiimaha gabadhu isu yeesho haday qiimaheeda garan weydo imka gabadhaha wadaga arkay mid walba naaska iyo balaqa iyo futada halkaas ay maraysaa haday gabadh xishoona soo noqon lahayd yani nin kasta ku soo dheerin laakiin waxa weeye dib waa baliga la iskaga badaalanaya waa ceelka la iskaga gudo dhacaya dhaq Jamaica kana dhahaya Sharma Boy waa nin laandeera guskiisana asaga iskale meel buu gelin karaa naagtii dhigdhigatana soo maaha waana laga gelin waana laga dhoofayaa how about that siilkan abada xaaska weeg waa laga sharaaya diyaaradna waa laga raacayaa hada la'aan haddii kiniiniga laqaa ee garan weyda ama ka dhabaa la xirtaa ee garan weyday oo haddamaana magaalada noqonaya u gelinayaa waa maya awalba waadan cagdheereed wax ma kala taqaana reer baadiyada jaahilada gabadhan hawiya kuu soo hartay gabadhan hawiyada waa naag laandheeraa oo birta calaashata naag maraykan joogtana way waraa lagu calooda loo dhali jiray hadday marba
shaqa tagayso why not ha dhigdhigato walaale ha ku ridato hadday doonto laakiin doqontan afka weyn amooda baska dabada amoodid inay soo bursatay gabadha yarta uurka lahaa oo ka harto wiilka yarna ha ka hartan taaganahay horta meeshaan hawiye iyo daarood meeshaan ma taalo laba gabdhood oo nin caan ah oo maaragtay laandheera ah oo labadaba maaragtay xiriir kala dhex maray dee ayaga ilaahood meeshaan naaga waxaan u jeeda caytamayo oo tan ogaadeen afka weyn waxa meesha ma taalo naagtii dhigatana waxa weeyaan shaqadeeda waa laga cabiyaa ma garata gabadhaas horta Mrs. Wall waxaan leeyahay Mrs. Wall gabadh caana oo aan qabiilada ku xadgudbin oo gaf badnayn oo social media-da iska xaraabaysata oo dhalinyaro baa tahay Ameerika dhex joogtaa haddii ilaahay ilmo ku siiyey oo ninka caanka in adeerka ilaahay ilmo kaasi anagu waa xaaraan iyo xalaal midna anagu ma oranayo labada qof inay isku guursadeen sababta aboodna isu meeriyeen uma ogeyn waxaa leeyahay horay u soco ilmaha haddii ilaahay ku siiyeyna korso ninkaasna dee Mareykan buu Canada iyo Mareykan waxba maaha waa wadan qurba waa qurbe wadana kana soo qaban karto nin dhuuman karana maaha baa joogtaa inaad publica iskenta maaha in horay u soco wixii nasaar rabtaan idinka u waxayst shalma bayban dib ugu soo noqonaya isaga badis galiyay ninkii fariisan waayo dhubuq hore baa leeyahay dhaforahays dambay leedahay masana meeshan hadda aan joogno dumarka ayaa ku baawar badan warbal mid dambe shalma bayow hay isugu dhawaan hadday hadda laba cunugo kala kaanhi meel shaquul dhex fadhiyaan Ameerika dhexdeeda bal Canada oo inta sharciga ka qaadanaysa leeyahay ka lugta hala gelin aad iyo aad aan farqada intaas ku soo qabay sababtoo ah labada qof ee dhalinyarada labadaba anigu waan taageeraa waa dad babla fikraay iyo fanaaniin bay isku jiraan marka hablo boog bay ku noqdeen beeshan leeleeyo ugaadeen taa waa arkaynaa gabadhan hadda koor sumugud jalaato xaba jalaato in lagu samugto jalaato ayadoo loo ruxayo barida ruuxaysa walaadan ku daari kara muuqaalkeeda waaye waxana horta dad dhaqalna ma ah ugaadeenkii bay ceebay sareerkay ka dhalatay wallahi iyadoo turki jalaato uu niikinayso futada ruuxaysa oo futada sa u ruuxaysa wabad ninkaas aa lagu bartay sumug mid kale waxaan waa doqon ugaadeenka doqonta ku badan gibigoodu waa doqon carabkiisa wada la laadinayo waa wada xoolo hadda waxaan Mareykan joogo naagaha oo darbiyada ka wada booday kulli buufinkii baa la siinayaa waa la dhabayaa qabiil dan raacaynina dadka gidaarada ka booday qoftu billaahi baan ku yiri iyo kuwa Nairobi jooga naagahan TikTok dhooban ay wada cabsanay quraarada sita ee nolosha ka wada dhacay wallahi buufin baa lagu wasaa waa buufin intuu jooga ma taqaan $20 $20 noloshii bay ka wada dhaceen buufinkaas lagu wasiyaa xalaal iyo xaaraan kala garamayaan habeen kasta mid cusub baa waxa weeye buufin u qaadaya halkaas bac madaxa loo gelinaya waxaana reerkii ka dhasheen bixi tanna Mrs. Wall hadda koor baa ayada cod laga keenay codkeeda in aragtay maqaan ma codkeeda bari la wareejin jiray dee waxaana waa qaxbado weey waxaana hablaha Soomaaliyeed bay ceebeynayaan dhaqankii Soomaalida ay dilayaan reerihii ay ka dhasheen bay sumadaynayaan teelaar waxaan waa boog weey hadda labadan naagood anu waxaan qabaa labadanba in la xukumo oo waxa weeye nimankii xagga inta loo geeyay in maxkamad la saaro markii dalka yimaanta la qabto la afduuba in waxa weeye jildaad in lagu sameeyo dhagax in lagu dilo arma maxay tahay naag safrinaysa oo Mareykanka u kala safrinayso oo waxa weeye Soomaaliya tanaaba igu daran doqonta ciyaalada u safrinaysa Afrika jooga ee baahan ee doqonta ay bool qaaliya wallahi maqan banku waxaan waa hidda waxaan dhaqan ahaan reer bawley waxaan waa doqon waxaan kun qarni baa doqon lagu xusay wareerkii webiga sonkoreeyay wareerkii waxa weeye yiri webi baan sonkore waa reerkii hasha aasay waa ugaadeen waxaan ina aqli male isma qabtaan naagahooda ma qaban karaan waa ina adeertii baan qaban waay ilaa dhama ma wallahi ku dhufanayo haday dhaqan xumo la timaado kabar ina adeertii aan qaban waay waxana hatta isma qaban karaan hatta wax isma dhihi karaan ya waxaan Ethiopia lagu soo baraa gaalada say waxa weeye waxa inta amxaar daban shaleynaa walaha nacala ugaadeen ku yar nolol ma haystaan waxana wax naas go'aano amxaar iyo oromo iyo dad uraya iyo juquro iyo waxna sabyad lama ah waa midga dhaleen way marka inaar labadan naagood baniyaar waa laba naagood oo isqabo lesbiana midna waa habar gidir
كلية نك اللي أنا راسوك فيني أنا أدرو هرتا وحن والله أنا كهذا الشو شراود بوصة يعني أنا أدرو وحن أدرو وكهذا ناك أنا وناك لله وقادنا أو شلاتة اللي وصة هذا بوفين بالو وصة قحبة أو مريكن كأهن كا أو مديد قبطة أفر وناك تهبين والله عنق بالتشوي والله اللي لحبوا بوفين والله أقعد مركزي سمينيت كي وحي كنتري waa sideed dambe la xabo buu mudgal la xabo buu fina iidoon wallahi yarkaan ugu lahaliyay billahi tala waa amiishtan way dhilada ay ogaadeenka ruuxana ruwa kala xadowi tan ayadoo la wasiya muuqaalkeeda la keeno qeylnaysa miswaadan wallahi billahi taladan coodkeeda shidi kar hadaba ku soo wada diraa madaarisa taleefka maysa kan ma boyna waa laandheere waa wiil ma charteena waa raaxaystay naagahadanna waa kala xadowiye mareykankana caanka Soomaaliya caanka qaarkood hal jalaato lagu wasay qaarkood waxa weeye free baa lagu wasaa waraa naagta dhilada xataa ka yeelimaysa inay free ku wasto laakiin kuwan xabad buufina lagu wasaa buufinku waa $10 ba qaxbado uraya weeyna kala xadaa